Nuuro waxa ay ku dhalatay deegaanka Aw Barre oo ka tirsan dhulka Soomaali galbeed gaar ahaan dhanka xiga gobolka Awdal. Hibo oo 6 ama 7 sano jir ayaa loo wareejiyay magaalada Boorama. Hibo yaraanteedii heesaha idaacadda ka maqasha ayay dib ugu qaadi jirtay bulshada reer Boorama, iyadoo waqtigaasi ay magaalada Boorama aad u imaan jireen dad lacag haysta oo u shaqayn jiray taliskii Faransiiska ee ka talin jiray dhulka Jabuuti. Hibo markii heesaha u qaado iyadana waxa la sii jiray waxoogaa lacag ah, gaar ahaan waxa siin jiray dumarka ganacsatada ah. Aabaheed Maxamed waxa uu ka shaqayn jiray garsoorka magaalada Ceerigaabo, waana sababta Hibo qayb ka mid ah nolosheeda ay ugu qaadatay Ceerigaabo, halkaas oo ay ku dhasheen qaar ka mid ah walaalaheed. Hibo waxay dadaal dheer u gashay inay hobolada ka mid noqoto, waxayna muddo daba socotay fanaaniin wada riwaayad la oran jiray Daruur baan filayaa ee Caryaanu daadku ugu qaadin. riwaayadaasi dadkii waday waxaa ka mid ahaa Cabdisalaam Beerdilaacshe, Seynab Xaaji Cali Baxsan. waxayna Hibo kooxdani uga daba safartay magaalooyinka Burco iyo Berbera oo ay markii dambe kula kulantay halkaas, oo Beerdilaacshe kaban uga tijaabiyay codkeeda, iyadoo Baxsanna ay ku tilmaantay cod tolmoon. Hibo waxa ay qaadi jirtay heeso horay oo u qaaday Xalima Khaliif Magool, sida heestii Saxardiid ee uu Maxamed Jabiye alifay ee asluub badanow. sanadkii 1967 ayay Hibo fursadii u heshay inay ka mid noqoto gabdho 3 ahaa oo kala ahaa Sahra Axmed Jaamac Jamaad iyo iyada oo la rabay inay ka mid noqdaan Radio Hargeysa. gabdhahan oo la tartansiiyay waxa la rabay inay buuxiyaan kaalintii Seynab Xaaji Cali Baxsan oo iyada la wareegtay kooxda ciidanka xoogga dalka. dabadeed waxay isku kaalin galay iyada iyo Sahra Axmed Jaamac, laakiin Hibo Nuuro ayaa idaacadda loo qaatay. sababta la xiriiriyayna waxay ahayd in dadka ka soo jeeda deegaanka Awdal ama fanaaniinta idaacadda magaalada Hargeysa ay aad ugu yaraayeen, balse xilligaasi waxaa jiray Farxiya Cali Faarax oo iyada ay Hibo isku deegaan ahaayeen oo Radio Muqdisho ka shaqayn jirtay. isla sanadkii 1967 ayuu Maxamed Cumar Xuseen Huryo Hibo u dhiibay heestii koowaad oo ahayd Hadimo naf jacayl haleelay. heesta waxaa laxanka saaray Axmed Ciga Warsame Ilbir, kadibna heestii Leexo ayaa ugu xigtay. Hibo waxaa loo soo bedelay Radio Muqdisho, waxayna sanadkii 1968 ka mid noqotay dadkii wax ka jilay riwaayadii Shabeelnaagood oo ahay riwaayadii ugu horeysay ee Hibo wax ka jisho. riwaayadani waxay kulmisay 2 kooxood oo fanaaniintii hore ah sida Cabdi Maxamuud Aamin, Saciid Maxamed iyo Cabdulle Raage, iyo kuwa cusub sida Hibo Nuura, Luul Cali Xasan, Maryan Mursal Ciise, Axmed Cali Cigaal. Shabeelnaagood waxay Hibo ka qaadatay door weyn, sidoo kalena waxa ay ka qaaday heestii ugu caansanayd ee dadweynahan hanuunina oo markii dambe astaan u noqotay guud ahaan barnaamijta fanka ilaa maantana loo adeegsado, laxankana uu saaray Bashiir Xaddi. muddo kadib Hibo waxa ay u wareegtay kooxdii Waaberi. Hibo Maxamed Hudoon waxay ilaa bilowgii kooxda Waaberi ka mid ahayd heesaagii iyo weliba jilaayaashii doorka weyn ka qaatay kobcinta magaca Waaberi iyo wax soo saarkeeda faneed, iyadoo oo Hibo sidoo kalena riwaayado ka dhigtay riwaayado la dhigtay kooxdii onkod ee asluubta sida riwaayadii Muruge iyo Macaan. Hibo waxa ay u safartay wadanka dibadiisa sida wadanka Niger iyo Ruushka. Hibo heesaha tirada badan ee ay qaaday waxa ay sheegtay inay warinayaan qisooyin dad kale ay leeyihiin, kuwaas oo mararka qaar noqon karo abwaaniintii alifay laftooda kuwa ku dhacay, laakiin iyadu waxa ay sheegtay in iyada heesa kooban ay ku saabsan yihiin sida heesta Ha Fikiri Nafteeda oo ay kaga hadlaysay mar ay rabtay inay jacayl ka baxdo nafteedana ay ku waaninaysay inay xaddigaas adkayso. sidoo kale waxa ku jira hees iyada saameyn xusuuseed ku leh sida heesta Daalo oo ay ku xusuusato markii ay ku nooleed Ceerigaabo oo ay arki jirtay buurta Daalo. heestaas waxa alifay Cabdi Xandulle Cabdi Afweyne, waxaana laxanka saaray Bashiir Xaddi. Hibo iyo qurbaha sanadkii 1990 ayay Hibo dalka Jarmalka caafimaad ahaan ugu qaaday aabaheed. dabadeed intii maqneed waxaa dalkii ka bilowday dagaaladii sokeeye, waxayna sheegtay iyadan iyo duuliyihii diyaaradii Somali Airline halkaasi ay degeen. Hibo fankii waa ay sii waday, waxayna baratay sida loo tumo aaladaha organka, iyadoo heesaha qaar muusiga u tumatay sida heesta Xidig ee uu erayadeeda alifay Maxamuud Cabdi Ciise Sangub, laxanka iyo muusigana ay Hibo tumatay.